الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahey ka dhamaantiin meel kasta aad joogtaan isoo dhawaada meeshan aad iga fiirsanaysaan waa channelkayga Aamina Sheekuna. insha Allah waxaan rajeynayaa waqti walba idin tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu idin wanaajiyo. marka hore waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن اللهم آمين. ولا لهيجا إن شاء الله وحن رجينا بش رمضان إلهي سبحانه وتعالى إنه عافيما دي برواقنا وقارسيو إلهي سبحانه وتعالى أو نفض أعماش بش رمضان إن شاء الله كوبيكا غنيميستين إلهي سبحانه وتعالى نقديقو دنبي قود لغو دافي دعوين قود لغو أقبلي مراددو لغو سهلي اللهم آمين. مركالي وحن رواقيشك marka xigto waxaan u mahad celinayaa walaalaha isoo weydiiyay xaaladeyda iyo maxaa igu dhacay on video u soo duubi waayay. walaalayaal waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayr. walaalo kamid ah wallahi markaan codkooda dhageystay ma rabeena wax soo duumaanta waa isa soo dhibay oo kaamirada soo hor fariistay. horta hadaan idin sheego barnaamijkii la dhahay wax duubis culays waxa iga saaran aan qiyaasi laahay ma rabo. marka damcayna wax soo duuba waa iska xanaaqaabo anoo soo duubinba. marka subhanallah maalmahan shalay martii ay imaatay waa mashquulay maalinkii ku xigay jimci iska aheed oo ma ku talagalin maantana yani hadda duub saa isku dhahay hadda anoo jiif isku diyaariyay walaalaha kamid codkeeda dhageystay. marka jazaakumullahu khayr wallahi alazim dhiirigelin weyn waaye dadka hadii ku soo raadiyaan ay ku dhahaan maxaa kugu dhacay waa ku weynay ku aaway videoyaashii aad uma hadsantihiin waa ay kana kaamirada hadda soo hor fadhiistay isoo ducay walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ii fududeeyo. walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij aad u muhiimsan insha Allah waxaan rabaa inaan videogan mid ka xig waxaan jeclahay uga soo hadlo in maaragtay aan uga soo hadlo ramadaanka insha Allah iyo inaan isku diyaarino biidnillah. laakiin arinkana caawa ka hadlayo wuxuu yahay hadda waa habeen waqti dambe way waliba ii tahay arin aan u arkay inuu yahay aad muhiim u yahay oo indhahana noo furi doono bal aan nafteena dib inaan ugu noqono wax yar ba Allah ka dhigay. muhiimada waxa waaye hal qof ba Allah ka dhigay in aan noloshiisa bedeshid. muhiimka waa intaas aan u soo duubay videoga. ma aha dadkoo dhan in aniga qasab ma aha in maaragtay aniga fikradeyda ay qaataan. qasab maaha inaan waxaan dhahay ay maaragtay ay maqlaan umana soo fadhiiba meeshan umada oo dhan inay ku maqasho waayo waxaan macquul ahayn bataas. walaalahayga dhamaantiinaba sidaad ogtihiin Soomaali badan qurbaha u soo qaxday. marka qurbaha ma aha kaliya Yurub iyo maaragtay iyo America ma aha meelahaas yani dadka reer galbeedka ma aha qurbaha Carabtu kale xataa Soomaali badan aaday. dhibaatada markay ka taagan qurbaha waxa ka taagan waxa laga yaabaa Soomaalidii in maaragtay la bartilmaameedsado la caayo oo la cunsuriyeeyo. way kala daran tahay way kala xun tahay. waa ognahay dadkeena qurbaha joogo oo qurbaha soo aaday ama Carab ka joog qurbaha ama ka joog meelahan wadamadan gaalada. adiga waxa leedahay cizzat nafsi yaa leedahay waxaa tahay qof sharaf isla lahaatay qof maaragtay qiimo isla leh nafsadiisa ay ku weyn tahay iyo qiimihiisa. laakiin si basiid ah ayaa maaragtay qof wuxuu ku leeyahay Carabtan ka bilaawayna waa ayaga xun moogtahay aad u sii liito ya abd ay ku leeyihiin ama ya afriqiye yani afrikaan yahay ama madow yahay aswada tahay ximaara tahay lagu leeyahay. بالله عليك maxaa adiga dareemaysaa markaas lagu ii sheeg oo qof adigoo kala ah dabcan waxaad u aragtaa qofka adiga ku caynaya inuu adigoo kala bashar yahay oo san waxba ku dheereen inkasto asaga uu isla yahay oo ama uu u maleeyo inuu adiga wax weyn ku dheer yahay oo adiga aad tahay Afrikaan. okay Afrikaanka dad ma ahmiya oo soo noqon doona qofkan wuxuu isla joogaa meel dheer adigana wuxuu ku fiirinayaa hoos. sidaas darteeda agtiis waxaaba ka tahay xayawaanka kala liitaa laana xayawaanka xishmad iyo raxmad u haya adig kuma hayaba. waa aragteen
gabdhaheena Soomaaliyeed wax ku haysta carbaha ama wiilasha Soomaaliyeed dhibaatada ku haysato okay carabta meeshan baakinan ka shanaynaa waxa imaanaynaa Yurub ama America ama adi wadamadan cadaanka ah way ku caynayaan waxay ku caynayaan waa ka midab duwanta adiga koow horta waxa way midabkaagaas ay waxay u maleeyaan in ay kaaga midab fiican yihiin marka hore waa lagu caynaa xafiiska lagu cunsuriyay reer Yurub sheekadaas waa isla ognaa waa isla naqaanaa America meelahaas oo dhan waa lagu cunsuriyeenaya waa lagu ataagaya si private aha lagu dhibaataynaya waa lagu yasaaya hadala hoosta lagaaga dhiibaya neegra lagu leeyahay madow waa lagu leeyahay afrikaana lagu dhahaaya dabcan dab sidid karkarays in lagu shubo camal korkaaga u huraa markaas oo kale markii lagu dhaho noocaas tahay maxaa ugu banay waayay su'aasha aan isweydiinayo waxay tahay waay qofka markuu ku caayo ku afrikaana tahay maxaa loo gubtaa sababtu waxay tahay oo loo gubanayo waxay tahay waay qofkan insaanka ah waxba kuma dheer asaga midabkan adiga kugu yaalay brownka ah ama madowga ahna adiga ma aadan samaysan ilaahay baa sameeyay asagana midabkan ma aragtay oo iftiinka ah iftiin ma ahanay waxa ka wada color kan kale waa color madow ah iyo color cad color kaas cad ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga ku sameeyay ilaahay markuu sasnoo abuuray wuxuu naga jeclaa dadkan Yurubiyaanku naga jeclaa mas arabtu naga jeclaa nagama jecleen ilaahay xikmadu u sameeyay ilaahay aayadihiisan kamidnahay cadaanka aayad ilaahay kamid tahay madowga aayad ilaahay kamid tahay tinta jilcan waa aayad ilaahay tinta adagna waa aayad ilaahay waay aad u gubanaysaa qofkan markuu sidaas kugu dhaw waay waxaad ogtahay ina isku mid tihiin labadiina bashirtiin lil asaf laakiin asaga agtiisa qaarkooda agtood bashar ma bakaniinba carabtaaba la qaataaba ku dhaysaba ya aswad kuwan waxay bahamiisiin ina daanyarta ay aaminsiin Soomaaliya arintaas wayna gubtaa wayna wada dhibaataysaa su'aashayda ula jeedadayda waxay tahay marka hadda waxaan isbarbar dhigaynaa wadankeeniyan u laabanayna u doolayna hadda wadankeena markaan tagno waxaa jirto ummad aan sida kuwan ay noo galaan aan u galno ummad waxaa jirto nala dhashay walaalaheena ah midabkii aan isku egnahay tinta aan iska leenahay hala ishaga naga qurux badan qaarkood laga qurux badan yaani waay maxay ku dhacday in dadkaas aan cunsuriyeyno maxay ku dhacday inaan dadkaas caayno anagoo ku caynayno qaabku ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray waay qabiilkooda loo caayaa fiiri ilaahay caadil waaye koobkii aan dadkaas biyaha ku cabsiinay ama Soomaaliya markii la joogay biyaha lagu cabsiyay dadka walaalaheena masaakiinta ah meesha markii la imaadayna anagana Soomaalida kalena macnaha laan dheeranimada sheeganaysay lagu cabsiyay maanta waxaan rabaa inaan idin dhaha marka istajiya isqaboojiya cunsuriyad ma dhaanto midna waa idin xasuusinaa cunsurinimada meeshaan taalo waxa ka xanuun badan cunsurinimada wadanka taalo waayo ka waran inaad dhulkii la leedahay oo deegaanka aad la leedahay oo diintii aad la wadaagtid oo midab la wadaagtid oo daris aad la tahay oo adiga ku caynaa 24 saac ku dhahayo reer hebel aad tahay iyo inta ka soo jeedaa iyo kana tahay iyo ninka ku caynayo dadnimuusan ku dheereen diin buusan ku dheereen dadka la caynayo waa dad sharaf leh farsamo yaqaaniin ah oo xoogooda cuno oo waxaan ku iri yani waa la ogyahay Soomaali maanta haday dadkaas ahaan lahayn Soomaalida sidee ku noolaan lahayd mararka qaar su'aashaas way isweydiiyay aniga qof aan awoodin inuu guri dhisto qof aan awoodin inuu kaba tashto qof aan awoodin inuu bir samaysto digsiga wax ku cun lahayd samaysto boorso samaysto dhar samaysto waxaas oo dhan adigoon awoodin ayaa waxa caynaysaa maanta oo dhan qofkii waxaas awooday caalamku waa meesha kaliya dadka farsamo yaqaaniinta lagu bahdilo lagu caay Soomaaliya aan reality ku imaano runta aan u imaano ninkan adiga aan kugu diinka ahayn on kugu midabka ahayn oo adoo baahan dhulkiisa imaatay markuu ku cunsuriyo ku caayo waa gubanaysaa ha gubanin cunsuriyadu waa cunsuriyad adigana adkaysato kadaada waa ninkan dalkiisa ugu imaaday
ninkii dalka kula lahaa ee wax walba kula wadaaga caynaysaa oo dulminaysaa 24 saac adigana waa gubanaysaa maanta markii lagu dulmiyo maxaa inta laga soo doonay dulmi iyo wax kastii bahdili wax walba loo dulqaato maxaa yeelay nafsiga waxa waaye ma haro waxaan haysatay dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed ee walaalaheena ah laga galay Soomaali waxa haysato dhibaatadii ay dhaxdeeda iska gashay Ilaahay inta laga cabsado runta loo soo noqdo qarniga maanta la joogo ayaa ma aragtay inta social media la soo fariisto aalis caayna waxa la reer hebel war anaga oo dhan waa is ognahay dadka qurbaha joogo oo reer galbeedka joogo waa la is ogyahay in aanan waxba hal dhifa shaqeysto oo reerkiis u shaqeysto inta kale ceerti u badan yihiin ceeraa la qaadana markaas inta meelaha la soo fariisto is caynaya waxa lagu caaytama inta lagu soo labisto la soo cuno waxaadan shaqeysani wadankiina noocaas lagu ahay qurbahan noocaas lagu yahay warsaan ma la isku dhaamo Soomaaliya isaan ma isku dhaano ilaa saa aqli ma ahane ilaa inta doqonnimadan lagu noolaana ilaa inta indha daboolnaanta lagu noolaanaya aan iska deyno aan wax ka barano waxa loo baahan qofka insaanka markii dhibaato ay ku dhacdo inuu wax ka barto waxa la rabaa naftaada inuu shakhsi walba naftiisa ku noqdo ha yiraahdo alla ilaahay cunsurnimada saani u xumeed mar dambe maanta laga bilaabo qof ibn aadin ma yasidooni man liidi dooni لأنه اللي تانك يستانك قف كان يسيسد واحد جرى ما بهانو لك واحد يسكر على عسكلي واي لكن قف كان ما أديك وحا أمليسيد أديك وحاواي وحاذا النفط هذا وقرين هو وقراني قفك ولا الكاغي مسلم كا إن شاء الله وحن رجينا يا فيديو كان إنه حلقة ما أركتي نفتين إن شاء الله إنه وحكا بدلو إن ما أركتي عقلية أن كفكرينه وحكا بدلو إن ما أركتي أن كفكرنه سناني عدالة إنان كفكرنو إنان نهدد ولا هلو وضع الشيء وودن كاسنا إسلاله وما أركتي أن لك لقوئينين لأنه قف ودن كي كله كله دقن ولك كله دقن وقولي كاس وهرجي الدقن إنا مالين كاستعايسد وبهدي شيء وتراد قبل يدي ميلك عم مجور سناي اسم مجور سني أنت اسكلام بحنا إيه سومالي وحصل اسكلاف إيمان كان الله نوسقه عدالة إسنان الله نسيه إلهي شعب كسوماليات هدانا وحن كبر يايا إنه إيمان كان نقليو إنه ما ركتي دين إسلام كأن هاي السنة وناجد أن كل قرنو أن كرهن شيء دينتين معان إن شاء الله مقال كان مش أنا كسو جبينا يا مت كان مت كحجو أنت كل مدونه وحنا دقيقتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.